beesha habar cafaan oo kamid ah beelaha deegaanada gobolka Awdal ayaa maanta waxay munaasibad qada sharaf u sameeyeen mas'uuliyiinta sarsare xisbiga mucaaradka wadani oo maanta soo gaaray magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Munaasabadan qadada ahayd ay fidiyeen madax dhaqameedka beelaha habar cafaan ayaa waxay ka qabsoontay hoteelka daaqada ee magaalada Boorame. Ujeedada kulankani maanta dhex maray hogaanka xisbiga mucaaradka wadani iyo madax dhaqameedkani ayaa daarana sidii la isku xal wareysan lahaa loona tirtiri lahaa xanaftii beesha iyo xisbiga soo kala dhex gashay doorashadii madaxtooyada ee 2017 ay ku kala aragti duwanaayeen. Barbilaba waxa kulanka hadalka ay bafray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Awdal Maxamed Aadan Suldaan. beesha halkan joogtay waxa weeyaan beesha habar cafaan weeyaan guud ahaan iyo salaadiintoodii oo iyagu xisbiga maanta madaxdiisa iyagu casumay hadalka intiisa badan iyaga leh salaadiintoodiina way joogaan. beeshani horta aniga waa reer abtigay waa beel had iyo jeer meesha guusha u joogta. maanta xisbiga wadani casuumadda ay u sameeyeen waxay muujinaysaa astaanta guusha ku soo socota insha Allah doorasho inagu soo fool leh ayay muujinaysaa oo beesha habar cafaan weligeedu may joogin goob guuldarro may joogin. marka waxaan arkayaa anigu ka gobol ahaan astaantii guusha in maanta xisbiga ay soo fadhiyaan baan anigu maanta u arkayaa. Suldaan Cabdinuur aha suldaanka kulanka soo qaban qaabiyay madax dhaqameedka kala duwan ee beelaha habar cafaan oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxay si isku mid ah u sheegeen hadda wixii ka dambeeyay ay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan dhismaha xisbiga mucaaradka ee wadani. waxa alxamdulillah oo ilaahay mahadiya maanta halkan waxa jooga beelaha habar cafaan 6 beelood oo kamid ah oo kala ah beesha Jibraaciin beesha Gobe beesha Ali Ganuuneed beesha Habar Yuusuf beesha Faroole iyo beesha Makeel. waxaana halkan ka muxuu ahaayeen ay ku joogaan dhammaan xuquuqaasha hogaaminaysay beelahaas ee dhaqanka. annagu sidii aan hore ugu ballan qaadnay xisbigan xoog iyo xoolba oo soo gelinay kamid baynu nahay doorashadii Ilaahay baynu guuleeyay tadammin Ilaahay wax ka rajeynay Ilaahay inuu guuleeyo. waan dagaalano dagaalkii annaguna waxaan ku dhacday fartaada eeday ayaa nagu dhacday. adiguna waa kii geerka ka noqday wadana waa kii geerka darkii ka noqday taas horta dagaalkii baa naga dhacday. waxaan doonaynaa maanta inaan ka girgilano daacad ku kulanno daacad wada shaqeyno. maanta wadadii shalay aad marteen idinkuna mari maysiin annaguna waan soo laabanay 6 beelood maanta halkan joogaan. waxaan ku rajo weynahay dhiil buuxa lagu siin maantana dhiil buuxa oo dafa lagu siin waxaad ka soo celisana waa la sugayaa. annagu haddaan nahay odayaashii uqaashii habar cafaan maanta waxaan diyaar u nahay dad garan waaye ma nihin dabeeshu dhanka u socota. maanta dabeeshu wadani bay u socotaa waxa sameeyay yaala wixii tabasho ee jira een hayno gudoomiyaha xisbiga iyo madaxda xisbiga inaan ka sheekaysano oo fariisano ayaan rabnaa. intaynu soo dhex gashay kalsoonideeda iyo turxaad bixinteeda waxaa gacanta ku haya gudoomiyaha iyo xisbiga madaxdiisa ayaa gacanta kalsooniga soo celin kara. dhankooda waxaa kulanka hadal ka jeediyay murashaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Calawi Cabdi hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo saraakiil kale oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani waxayna dhammaantoodba si isku mid ah uga mahad celiyeen beeshani maanta qadada u fidisay. Suldaan Cabdinuur muddo badan baan imika wada shaqeynay khayr Allah siiyo dadaalkii uu galayna waa 2 xildhibaan buu soo saaray waa suldaanka xisbiga ee galbeedka درجات سين قبيعي ما جريان وريو ما كسو كوبيا كليه وحي عنانها وقادني وحي عبتنا هانا وكغراوينا وحي عدسي هانا غدوميها نو ديننا isaga ka jawaabay kelmadda haybanaysan sheegaysan Soomaaliland oo dhan haysa am hay fartaydeeday war fardan bayaan leeyay hadii kale fartan waa lagu gooyay maanta horta ciro waa soo saarayna idinkuna cabashadiina waa ognahay waa u ballanteeno inay saragtaan oo
la wada fadhiisto insha Allah runtii gabagabadii kulankani qadada waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro taariikhda odayaasha ka sheekeeyeen waa sida ay uga sheekeeyeen dawladda khaladeen dhacayna waynu iska cafeeyna marka aynu iscafina marka hore kulliba marka hawl la qabto khaladu ka soo baxaya laakiin sida sheegteen wixii dhacay annaguna ma naan mahadin idinna ma idaan mahadin waxaan aqliga wanaagsan yahay inaynu isku soo noqonnay oo aynu isweydiino maxay naga khaldamay maanta dee isku duulnimaynu saaran nahay waxaanu idin ballan qaadaynaa inaanu marka hore wixii khaldamay xaggayaga aanu sixi doono waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Home Cable TV Boorama